السلام عليكم دمانتين رمضان مبارك صاحبة الشرف بدن maanta waxaan doonayaa inaan sharxo qaybta 11aad ilaa qaybta 15aad ee taxanaha la magac baxay The Unlisted. mataanaha Sharma iyo ayeeyadood waxay booqdeen xarunta Global Child Initiative si ay ula kulmaan Maya. Ayeeyada sida caadiga ah waxay xiriir wanaagsan la samaysaa waardiyaha iyadoo siinaysa sambuuskeeda caanka ah. Intay joogaan xarunta walaalaha waxay ogaanayaan barnaamijka aqoon isweydaarsiga sare. weli waa system kale oo ay soo saartay Ainsworth si loogu raadiyo kuwa aan liiska ku jirin. Kuwa xusuusta gaarka ah leh ayaa hawsha loo magacaabay oo laga dhigay inay xaafad walba basaasaan. Maya ayaa sidoo kale u sheegtay in loo diray shalay inay talaasho Rose. Mataanuhu waa inay ka fikiraan sidii ay uga bixin lahaayeen ka hor inta aan xusuusteeda la tirtirin sida team. Markay soo baxayeen ayaa waxay la kulmeen nin ka shaqaynayay qolka korontada. Duruu wuxuu weydiisanayaa inuu qolka ku soo booqday isagoo oo rajaynaya inuu heli doono xog kasta oo iyaga caawin karta. Intuu ninku sii jeeday ayuu xaday buug hage ah oo ku saabsan habka korontada ee goobta. Gudaha xarunta Maya waxay aadaysaa qolka Rose iyo Mark baaritaanka maalinlaha ah. Waxay si qarsoodi ah ugu sheegtay Rose inay diyaar ahaato waqti kasta iyadoo ballan qaaday inay sida ugu dhaqsaha badan uga saari doonto guriga. Duruu wuxuu falanqeynayaa buug gacmeedka oo wuxuu qeexayaa haddii qaybta korontada uu xiro dhammaan xarunta inay lumin doonto tamarta. Ma jiri doonaan kaamarado ama kaararka furaha oo shaqayn doona, taasoo noqon doonta fursad fiican oo lagu caawinayo Rose iyo Mark baxsashadooda. Waxay aadayaan goobta qarsoon si ay carruurta kale ugu sheegaan qorshaha iyagoo aan ka warqabin in Regan ay daba socoto iyaga. Meesha ay ku dhumaalaysanayaan ayay cid walba soo hor istaagaysaa waxayna u ballan qaadaysaa inay mas'uuliyiinta u sheegi doonto. Laakiin ka hor inta aysan cararin Kaal ayaa joojiyay iyada oo kooxda u sii haysato afduub ahaan. Talaalka si fiican uguma shaqeeyo gudaha goobta daahsoon taasoo Regan ka dhigaysa mid tamar daran. Sida awgeed si fudud ayay u degaysaa. Kooxdu waxay u sheegaysaa xaqiiqda Infinity Group laakiin way diiday inay rumaysato. Kamara waxay la sii joogaysaa Regan halka kuwa kalena ay aadayaan xarunta si ay u fuliyaan qorshahooda. Waxay maareeyeen inay xarunta ka soo galaan albaabka dambe ee ay Maya u sii furtay. Jacob iyo Gemma waxay joogayaan qolka korontada halka mataanaha ay si dhowmaaleysi ah gudaha u sii galayaan. Isla mar ahaantaana waxaa bilaabmaya inuu roob culus da'o. Mar kale iyo goobta qarsoon, Regan way ogtahay in jirkeedu uu u dhaqmayay siyaabo kala duwan maalmihii ugu dambeeyay, laakiin ma rabto inay rumaysato in iyada la xakamaynayo. Roobka joogtada ah dartii goobtu waxay bilowday inay biyo soo galaan. Kamara iyo Regan waxay ka wada shaqeeyeen sidii midba midka kale u soo saari lahaa ka hor inta aysan qaraqmin. Xarunta dhexe korontada waxaa loo malaynayaa inay sababi karto duufaanta roobka, sida awgeed shaqaalaha ayaa laga daadgureeyay banaanka taasoo u sahlaysa in mataanaha aan la arkin. Rose iyo Mark waxay ogaadeen in albaabka qolkoodu furan yahay oo ay banaanka u carareen. Mataanaha Sharma waxaa ceyrsaday waardiye balse Rose ayaa badbaadisay. Nasiib wanaag waxay awoodeen inay dibadda u baxaan iyada oo aan la qaban. Rose waxay daaha ka qaaday in talaalkeedu uu ku jiro fiilo yar sababtoo ah dhab ahaantii Maya ma aysan gelin daankeeda. Waxay ku qarinaysaa talaalka xagga dambe ee mooto meesha kasii tegaysay. Si kastaba ha ahaatee Mark weli waxaa ku jira talaalka oo waa la soo dabageli karaa haddii uu kooxda la sii joogo. Si uu uga caawiyo inay baxsadaan wuxuu joojiyay wakiilada oo mar kale ayaa la qabtay. Intaa kadib kooxdu waxay ku soo noqotay meeshii ay ku dhuumanayeen oo xiran daadka awgeed. Regan waxay u sheegtay inay aaminsan tahay oo aanay u sheegi doonin wakiilada waxa dhacay. Sidaas oo ay tahay Kamara ayaa ka qaaday muuqaal iyada oo qirtay in aanay taageersanayn kooxda Infinity Group. Waxay qorsheynayaan inay muuqaalka isticmaalaan haddii ay dhacdo inay isku daydo inay khiyaamayso mustaqbalka. Hadda oo kuwa aan liiska ku jirin aysan haysan meel ay degaan, mataanaha waxay ku martiqaadayaan inay ku noolaadaan garaashkooda. Subaxda xigta ee quraacda, warka ku saabsan Mark ayaa laga sii daayay TV-ga. xusuustiisa waa la tirtiray si uusan mar dambe uga hor imaan kooxda Infinity Group. Ainsworth ayaa ku andacoonaysa in ilmaha la afduubtay oo hadda la ogaaday si dib loogu soo celiyo noloshiisii saxda ahayd. Mataanaha ayaa kuwa kale u sheegay warka. Rose ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in saraakiishu ay qorsheynayaan inay isbeddelka ka dhigaan mid joogto ah. Haddii ay ku guulaystaan arrintan, kooxdu weligeed ma awoodi doonto inay kumanaan carruur ah oo liiska ku jira dib ugu soo celiyaan qaabkoodii runta ahaa. Duruu wuxuu hayaa Flash kaasoo jebin kara qaab dhismeedka guud ee kooxda Infinity oo siin kara inuu helo macluumaadka oo dhan. Macluumaadkan ayaa sidoo kale ka caawin kara inay burburiyaan xogta oo dhan si ay dib ugu soo celiyaan carruurtii la talaalay noloshoodii caadiga ahayd. Laakiin hawshu waa khatar maadaama ay tahay inay mar labaad soo galaan xarunta. kadib iyadoo ayeeyo kaliya ay guriga joogto, laba aqoon-yahan oo uu soo magacaabay GCI ayaa albaabka soo garaacay. Waxay siiyeen warqad yar oo ay ku yaalaan sawirada carruurta aan liiska ku jirin, iyagoo weydiinaya caawimo haddii ay weligeed aragtay. Galabtii
kooxdu waxay guriga ka soo galeen albaabka dambe waxay qubaysteen markii ugu horeysay toddobaadyo kadib Jacob wuxuu aaday qolkii mataanaha wuxuuna ka helay flash drive gudaha koobka Carl wuxuu garwaaqsaday in Carl uu isku dayayo inuu ka ilaaliyo Duru inuu burburiyo kooxda Infinity Group tani waxay la macno noqon kartaa ama inuu isbedelay mudnaanta awgeed ama talaalka ayaa deminaya shucuurtiisa Jacob wuxuu u orday dugsiga oo dib ugu celiyay Duru Chloe waxay aragtay Jacob oo ku soo laabanayo guriga in yar kadib waxayna u sheegtay Mr. Cunningham tani waxay sii horseedaysaa in aqoon-yahanadu ay mar kale baaraan aaga ayeeyada ayaa ka soo noqotay suuqa oo ay aragtay carruurtii aan liiska ku jirin oo guriga ku jira markii hore way argagaxday oo waxay isku dayday inay wacdo booliiska laakiin way istaagtay markay carruurtu ku adkaysteen inay yihiin saaxiibada Carl iyo Duru isla mar ahaantaana mataanaha walaashooda Fidya ayaa timid guriga dugsiga Carl wuxuu ku andacoonayaa inuusan xadin flashka kaliya wuu qariyay sababtoo ah wuxuu u maleeyay inay sidaa ka fiican tahay Duru wuu u ogolaaday waqtiga la joogo laakiin wuxuu go'aansaday inuu ka taxadaro agagaarka Carl waxay ku noqdeen guriga oo ay arkeen ayeeyadood oo carruurta kale cunto ku soo dhaweysay Maya ayaa iyadana timid isku waqti waxayna ogaadeen in qof kasta ogaaday Infinity Group maadaama aysan jirin meel banaan oo ku filan carruurta aan liiska ku jirin ee guriga ayeeyada iyo Maya waxay u kaxeeyeen nin ay qaraabo yihiin adeer wuxuu leeyahay tiyaatarada Bollywoodka lagu daawado sidoo kale wuxuu haystaa boos ku filan oo ay degi karaan carruurta aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu soo xareeyo oo uu ka qariyo wakiilada arrimuhu ugu dambeyntii way u roonaadeen carruurta hadda iyaga oo jooga meel nabdoon oo leh cunto iyo waxyaabo kale habeenkii Duru wuxuu waayay flashkii Carl wuxuu ku adkaysanayaa inaanu garanayn meel uu ku sugan yahay laakiin markuu geligiis yahay waxaan ku aragnaa inuu isagu yahay kii xaday subaxdii xigtay Duru wuxuu ka helay flashka qaybta qolka Carl uma sheegin walaalkii isagoo og inay sababi karto dhibaatooyin badan dhanka kale ayeeyada iyo Fidya waxay u diyaarinayaan cunto kuwa aan liiska ku jirin waxay keenayaan masraxa ay carruurtu ku daawanayaan filimada Bollywoodka intii la sheekaysanayay adeerkii ayaa sheegay inuu haysto receiver iyo transmission oo uu isticmaalo masraxa Kamara waxay rabtaa inay u isticmaasho inay fariin ugu gudbiso GCI taasoo ka caawin doonta mustaqbalka fog dugsiga Chloe waxaa loo doortay xubinta cusub ee elitiska sababtoo ah waxay Jacob u sheegtay Cunningham shalay laakiin maadaama ay jiri karaan oo kaliya 4 aqoon-yahan markiiba Regan waxaa hoos loogu soo celiyay qaybta asaasiga ee bilowga intaa kadib Mr. Cunningham ayaa ku wargeliyay elitiska inay aadi doonaan xarunta si ay u galaan imtixaanka ugu dambeeya tani waa fursadda ugu habboon ee Duru uu ku isticmaali karo flashka oo uu ku geli karo systemka Ainsworth waxay ku qaabilaysaa xarunta oo ay ku soo dhaweysay waxaa soo baxday inay afartu yihiin tusaalaha ugu horeeya ee guusha Global Child shirkadu waxay qorsheynaysaa inay u isticmaasho iyaga iyo kuwa la midka ah si ay u abuuraan dugsi kale oo ay ka buuxaan elites kooxda ayaa markaas la tusi doonaa muuqaal loogu talagalay in lagu geliyo cabsi iyo naxariis cilmi baarayaashu waxay ku yareeyaan naxariista carruurta iyaga oo isticmaalaya tabletkooda halka kuwa kale ay ka argagaxeen muuqaalka kaalma dareemayo waxba tijaabada dhexdeeda Duru wuxuu ku cudur daartay inuu aadayo musqusha dibadda wuxuu ka helay kaarka furaha Maya wuxuuna gelayaa qolka kontaroolka ee koowaad isagoo kaashanaya flash drive-ka Duru wuxuu jebinayaa baasboorka wuxuuna si guul leh u maareynayaa inuu galo systemka xarunta si kastaba ha ahaatee ma awoodo inuu burburiyo isla markiiba alarmiga ayaa u digaya qof kasta oo ku sugan xarunta isla mar ahaantaana Kamara iyo kooxda ayaa jabsaday shaashadaha xarunta oo ay ku duubeen muuqaal iyagoo ku dhawaaqaya imaatankooda Ainsworth waxay garwaaqsatay in Duru uu yahay jabinta waxayna weydiisatay Carl inuu u sheego waxa uu og yahay durbadiiba waxay ogaadeen inuu 2 jeer talaalan yahay oo ay mid ka mid ah ka soo saareen waxa kale oo ay gebi ahaanba meesha ka saareen shucuurtii Carl oo ay ka dhigeen inuu la dagaalamo walaalkii Duru wuxuu ku guuleystay inuu baxsado laakiin Maya waa la qabtay oo waa la xiray kuwa aan liiska ku jirin waxay bilaabeen inay fidiyaan baalashooda iyagoo ku dhijinaya boorar badan oo magaalada ah tani waxay ka bilaabatay mowjado argoosi ah oo ka imanaya carruurta aan liiska ku jirin ee adduunka oo dhan meesha ay ku dhuntaan Duru iyo Kamara waxay ogaadeen in qaab dhismeedkii ay shalay heleen uu ahaa mid aan waxba tarayn xogta cusub waa inay mar labaad tagaan xarunta si ay dhab ahaantii u burburiyaan Carl ma garanayo meel ay carruurtu joogaan wuxuuna ka raadinayaa meel walba sidii la amray isla markaa Ainsworth waxay timid hoyga Sharma waxay ku qancisay wiilka waalidkii inay Carl ku soo daraan marxaladda labaad ee barnaamijka GCI oo ay ku diraan qaybta elitiska isla markaas Carl wuxuu helay Duru iyo carruurta kale wuxuuna si xoog leh isugu dayay inuu Duru u keeno Ainsworth si kastaba ha ahaatee isagoo kaashanaya ayeeydii iyo carruurta kale Duru wuxuu ku guuleystay inuu baxsado intay carruurta aan liiska ku jirin ay ku ordayaan wadooyinka ayaa Jacob waxaa helay wakiilada oo la qabtay gabagabadii mataanaha waxay ku soo dhamaanayaan goobta daasoon iyagoo diyaar u ah inay iska hor yimaadaan Duru wuxuu xusuusinayaa walaalkii inaanay ahayn walaalo oo kaliya ee ay isku xiran yihiin sidoo kale wuxuu rajaynayaa in dareenka Carl ku jiray uu dib u soo noolaado balse
ma dhicin. Muuqaalka soo socda Kaal wuxuu mataankiisa u keenay Ainsworth oo uu xabsiga dhigay. Dhanka kale, kooxda kale waxay rajaynaysaa in Duru uu awoodo inuu qanciyo walaalkiis oo ay horay u sii wataan qorshahooda. Ayeeyada iyo Fidya waxay mashquulinayaan waardiyaha banaanka xarunta, halka Jema ay si dhuumasho ah ku soo gashay. Maadaama shaqaalaha badankoodu ay ka soo qaybgalayaan xafladda furitaanka dugsiga sare, xaruntu waa faaruq. Iyadoo isticmaalaysa jihada ay Kamara ka soo siisay dibadda, Jema waxay ku guulaysatay inay sii dayso Maya iyo Jacob labadaba. Dhanka kale xafladda, Ainsworth waxay ku dhowdahay inay u sheegto Kaal inuu riixo badhanka ka dhigaya dhammaan isbedelada carruurta mid joogto ah. Carruurtu waa inay burburiyaan tabletka weyn ee Ainsworth ka hor intaanay taasi dhicin. Kaal waxaa loo qorsheeyay inuu ka hor hadlo daawadayaasha hortooda si uu u noqdo wax soo saar aad u wanaagsan oo ka mid ah barnaamijka GCI, laakiin wuu khalkhalaya oo ma dhammaysan khudbadiisa. Hooyadii oo iyaduna xafladda joogtay waxay u malaynaysaa inuu yahay Duru beddelka Kaal. Waxaa soo baxday inay labaduba ku dhex heshiiyeen goobta qarsoon oo ay boosaska kala beddesheen. Kaal waxaa gacanta ugu xiran qalab soo daaya shucaac cayiman oo si ku meel gaar ah u curyaamiya daawada talaalka. Isagoo isticmaalaya qalabka ayuu awooday inuu sii ahaado mid aan la saamayn. Ainsworth waxay Duru keentay gudaha oo u dhiibtay tabletkii uu rabay inuu burburiyo. Iyada ayaaba u fududaysay shaqadiisa. Isla markii uu ku sigtay inuu jabiyo, Rose iyo Kamara ayaa imanaya oo joojinaya, iyagoo u malaynaya inuu Kaal yahay. Waxaa arkay Ainsworth oo ogaatay qorshahooda yar. Mar kale, Jema iyo kooxdu waxay galeen qolka kontaroolka. Hadda waxa kaliya ee ay tahay inay sameeyaan waa inay sugaan fariin ka timaada Rose, sababtoo ah tabletka iyo systemka waa in la burburiyaa isku mar. Laakiin nasiib daro, Rose, Kamara iyo Duru waxaa lagu xidhay qol ay ilaaliyaan rag. Qalabkii gacanta ee Kaal waa laga saaray oo talaalka ayaa mar kale saameynaya. Ainsworth waxay siisay tabletka oo u keentay maalgashadayaasha. Waa inuu badhanka ku riixaa iyaga hortooda si kooxdu u aragto in GCI ay ku guulaysatay inay si buuxda u maamusho maskaxda carruurta. Dibadda, ayeeyada iyo Fidya waxay abuurayaan jahwareer siinaya Rose, Kamara iyo Duru fursad ay ku baxsadaan. Waxay ku guulaysteen inay tagaan qolkii Kaal oo ilbiriqsiyo u jira inuu riixo badhanka. Duru wuxuu ka baryayaa walaalkii inuu joojiyo, halka Ainsworth ay ku boorinayso inuu riixo badhanka. Ma joojinayso Duru, iyadoo doonaysa inay tusiso saraakiisha in Kaal aanu hadda dareemayn wax xiriir ah oo uu la leeyahay mataanaha. Laakiin waxaa soo baxday inay khaldan tahay markuu Kaal jabiyey tabletka halkii uu badhanka ka riixi lahaa. Isla mar ahaantaana Jema waxay jebinaysaa systemka weyn oo ay burburinaysaa. Ainsworth way isku dhex yaacday waxayna isku dayaysaa inay u caddayso saraakiisha inay weli xakamayn karaan carruurta. Isku daygeeda ayaa dib u noqday kadib markii Kamara ay shaaca ka qaaday inay si live ah dhacdada ugu tabinaysay dadweynaha. Kuwa aan liiska ku jirin ayaa ugu dambeyntii shaaca ka qaaday xaqiiqda ku saabsan barnaamijka Global Child Initiative Program. Booliska ayaa yimid oo xirxiray Ainsworth, saaxiibadeeda ganacsiga iyo dhakhaatiirtii caawinaysay. Muuqaalka soo socda waa qoyska reer Sharma oo wada cuntaynaya. Waxay daawadaan warka ku saabsan Ainsworth oo lagu xiray hawsheeda. Global Child Initiative Program waa la kala diray, laakiin kooxda Infinity Group weli way shaqaynaysaa. Ka hor intaanay seexan, mataanaha waxaa la soo xiriiray carruurta aan liiska ku jirin si maqal iyo muuqaal ah. Dhammaantood waxay ku noqdeen waalidkood, wayna nabad qabaan. Muuqaalkii ugu dambeeyay, Kaal iyo Duru si kaftan ah ayay u murmeen oo way seexdeen. Laakiin markaa waxaan aragnaa cayayaanka yaryar ee robotka ah oo gelaya dhegahooda, taasoo muujinaysa in qof weli isku dayayo inuu xakameeyo. Muuqaalka halkan ayuu ku eg yahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.